مسؤولينta hay'adda khayriga Al-Hayat Islamic Foundation ayaa magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wafdi ka socda dalka Kuwait gaar ahaan hay'adda u qaabilsan gargaarka bini'aadanimada ee Hayaa Turaat oo fadhigeedu yahay wadankaasi waxaana ujeedada safarkoodu la sheegay inay la xiriidho sidii gargaar bini'aadanimo ay ugu fidin lahaayeen Somaliland مسؤولينta hay'adda Hayat Islamic Foundation oo hogaaminayo Sheekh Cabdixakiin Axmed Barre oo ay weheliyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u dejinta Sheekh Aadan Cabdillaahi iyo wasiiru dawlaha wasaaradda duulista Axmed Nuur Faahiye iyo xubno kale ayaa soo dhaweeyay wafdigani waxaana ay ka hadleen qolka nasashada ee madaarka waxaynu soo dhaweynaynaa wafdiga barakaysan ee jamciyadu Ihyaa Turaat al-Islaami ka socda gaar ahaan lajnada al-Qaar al-Afriqiya ee ra'iiska lajnada haysta ee Sheekh Jaasim al-Aynaati waxa kaloo la socda Dr. Farxaan bin Ubayd al-Shamari iyo walaaladiisa kale ee muraafiqiinta ah waxaynu ku mahadnaqaynaa ziyaarada ay noogu yimaadeen wadankeena aynu ku soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay gacmo furan iyo qalbi furan waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiina waa runtii ka dawlad ahaan waynu ognahay doorka ay ka geysato dawladda Kuwait ama hay'adda Ihyaa Turaat ee ku aadan arrimaha bini aadamka arrimaha waxbarashada iyo dhammaan dadaalka ay maxaan ku raadayay ugu jirto horumarinta inagala qayb qaadanayso arrimaha bulshada rayidka ah waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdigan dalkoodii walaalahood dadkoodii cid kasta oo wax kaga xidhmaana insha Allah waanu dul taagi doonaa waanu u geynaynaa waxaan kale oo mahadnaqaya culimada reer Soomaaliland halkan fadhida hay'adaha khayriga ah ee localka ah ka wakiilka oo runtii ah dadkii culimadii u guntatay markii ay dhacday abaarta iyo majaacada xun ee guntiga u xidhatay waxa la yiri hadii dadku isu naxariistaan ilaahayna uu naxariista wata maanta biyo meel kasta yaaliin ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay madaxa wafdigaasi hogaaminayay Sheekh Jais al-Aynaati alxamdulillah subhanahu wa ta'ala an wasalna ila waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa magaalada Hargeysa iyo markaasina safarkiisa uu ku darsi doono xaaladda bini'aadanimo oo dawladda Kuwait ay gacan ka geysanayso dhawaan